shirkan oo lagaga hadlayay dib u eegis lagu sameeyay manhajka waxbarashada dalka waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Cismaan Jaamac Aadan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha waaxda manhajda ugu horeynna mudane Cabdilaahi Yaasiin oo agaasimaha waaxda manhajda dalka ayaa ka waramay muhiimadda shirkani u leeyahay dardargelinta waxbarashada dalka iyo doorka uu ku yeelanayo tayeynta manhaj midaysan raggan waa macallimiintii dalka ama jaamacadaha joogaan ama dugsiyo sare oo dalka ah joogaan private iyo public way isugu dhex jiraan marka muddada aan ugu talagalaynayso inay hawshan ku qabtaan waxa weeye 30 maalmood haddii la yiraahdo waxaan ugu talagalay sanad walba inaan hoos u degno hal grade oo haddii la yiraahdo sanadka dambe iyagana waxaan u garaynaa 6ka haddii ay awooddu inoo saamaxdo iyo waqtigu iyo form 2ga ayaan galeynaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Abakor ayaa isna ka waramay qorshaha ay wasaaraddu ka leedahay dardargelinta iyo wax ka bedel lagu sameeyay manhajka dalka manhaj marka laga hadlayo waxyaalaha tiirarka kamid ah waxbarashada runtii iyo qaranimada saameynta weyn ku leh ay kamid tahay waxa markaa soo saaraya manhajku mustaqbalka ubadkeena dadku soo ekaan doonaan iyo si u fakari doonaan iyo si u dhaqmi doonaan manhajka markaa qaabaya marka manhajkeena waxa loo baahan yahay noqdo mid tayo leh waxa loo baahan yahay noqdo mid la jaan qaadaya marka dunida maanta casriga lagu nool yahay maanta waxa dib loo eegay waxa weeyaan waa buugaagta form 3ga ama dugsiga sare fasalka 3aad iyo fasalka 7aad dugsiga hoose dhaxa buugaagtiisa waxyaalaha ka soo noqonaya marka macallimiinta iyo dadka buug akhriyay buugaagta akhriyay marka in tayahaana qoraalku hagaagsanaado qoraalahaana hagaagsanaado marka kow inaan ilaalino marka qorino tusaalayaashan soo qaadana hadii xisaab tahay hadii juqraafi tahay hadii saynis tahay iyaguna marka tusaalayaal waadaxaynayeen in dhaqankeena marka waafaqsan yihiin oo aan wax dhaqan ka hor imanayeen marka waxyaalahan aad u eegtaan idinka dhexdeena deeys wadaastaan buug lagu dhiibin ma ahay buugga kala waxyaalaha aad ku aragteen walaalka kale ama qofka kale kula shaqeynaya aad la wadaagtaa tira halka ka hagaaji way wax qaran oo inaga wada dhaxeeya oo qurux badan naga soo bixi doona weyn gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Cismaan Jaamac Aadan ayaa si qoto dheer uga waramay dadaalada kala duwan ee ay wasaaraddu wado iyo sida loogu baahan yahay mar walba in la dhugto loona fiirsado dardargelinta waxbarashada qaybta manhajda oo ah rukun dhaxaadka waxbarashada dalka marka ugu horeysa idinkooda ka bilaabma manhajku ka bilowda marka dambana macallimiinta dhigaysa iyo ku dambeeya labadaas markay iskaashadaan product ka soo baxa waa ardayga muraajacadan ama dib u eegidan ku eegtaan oo sal uga dhigtaan in ardayga baranaya ay wax badan tarto ay u diyaariso heerka dambe ee uu u gudbayo ama uu gaarayo in wax weyn ay ka tarto oo isagoo u diyaar ah wixii dambe uu u tegayo ku talagala maadooyinka review-ga ku sameynaysaan in ay noqdaan qaar raad reeba oo ardaygu wax ku barto وعبد الرحمن المس تلفزيون قرن Soomaaliland Hargeysa